السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته دaawadyaal kusoo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan maanta diiradda ku saari doono deeqda waxbarasho ee Turkiga Brazilari wejiga labaad ee interviewga ardayda lagu casuumay 2025 ee Soomaalida waxaan u diyaarinay arday dhigooda Soomaali ah kuwaas oo wadadan hore u soo maray waxayna nala wadaagi doonaan khibradoodii iyo sidoo kale waxay bixin doonaan talooyin kuwaas oo isleeyihiin ardayda way ka faa'iideysan doonaan waxaan ardaydan dhammaan jecelahay inay iskaga warbixiyaan qof kastana uu asaga faahfaahin iska bixiyo waxaan ku bilaabi doonaa gacanteeda midig galad soo dhawow بسم الله magacayga waa Galad Barre Yusuf waxaan ka mid ahaa arday Soomaaliyeed ee wax ka barata dalka Turkiga waxaan dhigtaa jaamacadda Ataturk University ee ku taala gobolka Erzurum waxaan yani sanadkii u dambeeyay ayaan dhigtaa kulliyadda Agricultural Engineering waxaan imi wadankan 2022 bishii October 2 baan imi haddana waxaan ku jiraa sanadkii u dambeeyay insha Allah waxaan rajeynayaa sanadkan inuu sanadkii u dambeeyo oo noqon doono waa maasanta بسم الله الرحمن الرحيم مقعي عبد الرزاق عبد الله حسن waxaan kamid ahay ardayda Soomaaliyeed oo wax ka barata dalkan Turkiga magaalada Erzurum jaamacadda Ataturk kulliyadda sharciga master degree بسم الله الرحمن الرحيم مقعي عبد الرحمن محمد موسى mid ka mid ah ardayda ku soo guuleystay deeqda waxbarashada Turkish Brazilari ama deeqda waxbarashada dalka Turkiga uu bixiyo waxaan joogaa magaalada Erzurum ee gobolka Erzurum waxaan ka mid ahay ardayda waxa way wax ka barata jaamacadda Erzurum Technical University kulliyadda Civil Engineering level-kuna waa master degree aad ma santahay Cabdiraxmaan iyo saaxiibada kale dhammaan sidaan la socono interviewgan wuxuu bilaaban doonaa bishan hadeertan aqalkeeda ilaa iyo wuxuu socon doonaa 28 hadda sidaan ku hayno xogaha 27 ay u badin ardayda interviewga ka mari doonaan interviewgaas ardaydu waxay u baahan yihiin diyaar garow isaas leenahay marka Cabdiraxmaan haddii aan kugu bilaabo adiga maxay tahay waxyaabaha muhiimka ah in ardayga uu ogaado ka hor interviewga intuusan miiska tagin oo aan la wareysto u noqonin saaxiibka maxamed aad baa u mahadsan tahay barnaamijyada muhiimka ah ardayga loo baahan yahay inay diyaar u yihiin intaan interviewga ka hor tagin waxaa ka mid ah allahuma salli calaa maxamed waa documentiska looga baahan yahay macnaha documentiska oo saxa ah shahaadadiisii transcriptigiisii oo kale passportkiisii oo kale travel documentiga ama national ID oo kale passportku hadda interview xilligiisa macnaha muhiim weyn maaha laakiin adiga aqoonsi qofku aqoonsigiisa iyo documentiskiisii shahaadooyinkiisa iyo wixii la xiriiray waxaa kale oo muhiima looga baahan yahay daftarkiisu inuu dee sii diyaar garoobo tusaale jaamacaddiisii uu doortay number 1 ka oo kale in uu allahuma salli calaa maxamed uu naftarkeeda xog badan ka hayo magaaladay ku taalo oo kale inuu xog ka hayo waxaas u dhan inuu sii diyaarsado ka hor intaan interviewga tagin oo laga weydiin doono hadhow su'aalo la xiriirta jaamacadda iyo deegaanka ku taalo iyo si guudba taariikhaha Turkiga allahuma salli calaa maxamed iyo wax badan oo Turkiga la xiriira inuu qofku uu sii baarbaara hadeer oo iyada naftarkeedu noqon doonta case hadhow ku adkeyn doonta in qofka loo arko inuu interest garaynayo in allahuma salli calaa maxamed inuu halka wax ka barto kolay intaasaan oran karaa aniga ardayga markii uu interviewgan helo waxaan ognahay inuu dareemo farxad aad u badan waayo waxa interviewgan uu ka dhigan yahay midkii go'aamin lahaa mustaqbalkiisa marka kaadi ahaan way aragnimada adigu isticmaalaysa ardayga maxaa laga maarmaan u ah maalmaha uu interviewgan ku guuleysto ka hor intuusan miiska tagin inuu sii diyaar garoobo waa santaa saaxiibka Maxamed maantii inta uusan qofku interviewga tagin ka hor hal rabarta laba qaab inuu diyaar garoobo marka koowaad inuu horta dadkaas interviewga ka qaadayo muslimiinta interviewga ka qaadayo inuu muujiyo horta marka koowaad in waxa uu rabo iyo wadanka uu doonanayo inuu horta aqoon ku filan ama aqoon ama xog hordhac uu ka hayo iyo tan labaad oo ah inuu u muujiyo inuu u qalmo inuu barnaamijkan ama deeqdan in la siiyo inuu u qalmo sidaa darteed marka qofku waxaa la rabaa muuqaal ahaanna inuu isku soo diyaariyo information ahaan ama xog ahaan isku soo diyaariyo kahor intuusan imaan goobta interviewga looga qaadayo sidaa darteed marka labadaas shay haddii ay ku qancaan qofkaani inuu u qalmo deeqdan tan labaadna xog fara badan uu ka hayo waxa uu rabo labadaas haddii ay ku qancaan waxay u bandaan doontaa in markaas interviewgaasi natiijo aad u farax gelisa uu kala kulmo marka intaas waxaan kusii xoojinaa intii saaxiibkii Cabdiraxmaan uu sheegay galad sida aan la soconno tiimkana sheekooyin badan oo kaga soo diyaaran doonaa asxaabta Turkiga Brazilari xiisaasi waliba deeqaha waxbarasho kale ee sii baarto maalin waayo arag badan u leh sanadan hadda meeshaan uu ka soo horeeyay inkastoo aniga saddexdeenaas arday aan ardayda sanadkan meeshaan hadda sanadka koowaad meeshaan joogto laakiin asaga
way aragnimo badan buu u leeyahay Turkiya Brazilian scholarship bal waxaan jeclaan lahaa in wax yar uu way aragnimadaas uu noo sheegay kadibna waxa ay tahay in ardayga uu sii diyaar garoobo uu hal iyo laba nig yiraahdo. maxamed waa mahadsan tahay marka u horeyso ardayda Soomaaliyeed isku diyaarinaysa horta interview waxaan u rajeynayaa guul in interviewgan ay kusoo baasi doonaan rajeynaa waxa ugu muhiimsan uu sheegay walaalkii Cabdiraxmaan wax badan u sabidaami waxaa kaloo ku diri lahaa bisle markii ardayda meesha tagayaan xogtii ay xareeyeen iyo wixii meesha dokumentiga la tagayeen horta dokumenti islaadaan oon iskhilaafin waayo haddii dokumentiga qaar oo kale hore usoo xareeyeen meesha markay tagaan oo kale waxyaabaha shaqada oo kale work experience oo kale wax la iska weydiiyaa waxaa u badan oo dadka loo control waaye iyo shahaadooyinka marka sidaa usoo xareysay waa inaad ugu run sheegtaa waxyaaba qaar oo kale ninka dokumentiga aad soo xareysay unbuu haystaa meesha marka wuxuu kala soconaa wax walba aad soo xareysay wixii qalad oo aad kusoo siyaadisay iyo waxa aad run sheegtay meesha uu kala soconaa marka waxyaabaha kaliya go'aamin kara waxay tahay wixii dokumentiga saa usoo abalaagaraysay sax inaad ugu run sheegto waxaa kaloo go'aamin kara facultyga aad dooratay tusaale kale haddii IT aad doorato kale waa in IT wax la xiriirsan sax uga hadashaa maahan macnaheedu inaad medicine oo kale ka hadashaa maahan ama beero oo kale ka hadasho soo hadda ana beeraha bartay markii la yiraahdo concept iga sii beeraha maanta markii la yiraahdo xogti meesha iyo xariisneedna wixii oo khibrad aan lahayn meesha igu qoran tahay waxa weeyaan inaan sidii ugu munaafsisan inaan u soo jeediyo aan uga hadlo si qofka competition ugu jiro biri kamaal yani ugu badbaadi karo yani inuu igu kormaro macnaha fursadaas marka waxay saamaxaysaa si interviewga yani su'aalaha saxda ugu jawaabo inaan arday lambar badan inaan yani ugu jaanis badana marka taasna muhiim waaye waxa kaloo ayadana muhiim ah jaamacadaha aad dooratay 2 2 3 inaa jaamacadaha faculty bixiyaan xarumaha centrada cilmi baarista ay leeyihiin in institute waxaas oo dhan ina goboladii ku yaalaan locationka wax walba oo dhan inaan marka hore interview ka hor waa ina gooblaha baaritaan badan samaysa adoo xog fiican ka haysta meesha markaa tagtid si yani macquul ah ugu jawaabtaa department-yaashaada wax walba ka jira in adoo information fiican ka haysto interviewga miiska fadhiisata waxa kaloo go'aamin kara faculty-gaada waxa kaliya go'aamin kara waxay tahay maadaama bachelor aad soo barato kale waa in 4 sano wax soo baranaysi wax oo la xiriir fieldigaas la xiriira inaad si sax meesha ugu soo bandhigi kartaa tusaale haddii 4 sano yani bachelor aad soo dhigatay oo ama IT ama medicine ama beeraha soo dhigatay haddaa 10 daqiiqo ama 5 daqiiqo kamid ah waqtiga haddaa si sax u sheekay karin macnaheedu waxay ka dhigan tahay weli inuu dhankaada gaab ka jiro marka waxaa muhiim ah inuu qofka si sax isku soo diyaariyo interview ka hor waqti fiican uu geliyo 2 saac baa ka dhigay inuu waqti geliyo si uu su'aalahaas badan oo ardayda yani lambarka badan oo competition ka jira soo uu saddex bixi lahay filkeed inuu gal macna taasna waxay door ka qaadanaysaa inuu ardaygu uu ku soo guuleysto ama wareegga u dambeeyo oo la isku soo aqbalo jaamacadaha la isku soo diri doono inuu imaado taasna waa mid ugu muhiimsan asleeyahay ardayga go'aamin karta inuu wadankan waxbarasho u imaado Cabdiraxmaan baan dib ugu laabanaya Cabdiraxmaan waxaad soo hadal qaadeen in ardayga laga maarmaan uu yahay inuu diyaar galow muujiyo ka hor inta uusan tagin miiska wareysiga waxaa sheegteen in macluumaad uu ka hayo meesha uu ku socdo iyo in uu xogtiisa uu sii diyaarsado ka waran hab body gesture waxa la yiraahdo hab muuqaalka qofka qayb ma ka qaadan kartaa wareysigiisa in uu sii diyaar galow saaxiibkii maxamed aad baa mahadsantahay su-aashaana waa su-aal muhiim ah soomaalidu waxay ku maahmaahdaa hogaagu waa kula shirtagaa waxaa weeye structure-kaagu sida ugu macquulsan aad isku hagaajin karto oo aad dad ku wajihi karto inaad isku diyaariso hogaagu waa wax adiga ku tarjumaya macnaha si inaad dee dhaqaalo badan oo kharash badan taa gashaad wax soo gadgato oo suudad iyo barnaamijyo noocaas soo xirto macnaha ma ahan laakiin adiga sida ugu wanaagsan aad isku diyaarin karto inaad isku diyaariso hogu waa kula shirtagaa baan oranayaa Cabdirasaaq waxaad tiri qofku waa in uu caddeeyo inuu u qalmo deeqdan waxbarasho maxaa kala jeedaa waxaan kala jeedaa maantii sidaan ognahayba deeqda dadka la siiyo ama dowladaha la siiyo waxay xadidan yihiin si gaarana shakhsiyaadka waddan kasta inta la siiyana way sii xadidan yihiin sidaa darteed marka turkigu mar walba waxay isku dayayaan ama qolyaha komitiigu waxay isku dayayaan mar walba dadka ugu qalma deeqdan inay siiyaan sidaa darteed marka waxaan ka wadaa inaa u qalantid inaa u muujisid waxaan kala jeedaa yani xogta aad yani ka haysid turkiga waxyaabaha aad rabtid yani inay ku arki karaan qof haddii ay waxbaraan ama qof haddii ay juhdigaas iyo geliyaan qof hadhowtii advantage ama faa'iido ka keeni kara tusaale ahaan inta badan waxyaabaha turkiga inta badan hadday u sheegaan waxaa kamid ah dadkay waxbarayaan in ayaga safiirro u yihiin yani dad ayaga ka tarjumaya kama wada yani safiir waddankaas yani turkiga waddankaas matalaya kalama jeedo
laakiin markay yacni wixii ay ku bareen iyo aqoontii ay kugu caawiyeen marka inta la taxiga waddankaaga dib ula naqato inaad at least ka tarjumayso thaqaafadii iyo dhaqankii iyo waxbarashadii iyo yacni turkiga inaad ka tarjumi karto macnaha sidaa darteed marka mar walba waxay xoogga saarayaan dadka ugu qalma ugu macquulsan ee isdhihi karaan dadkan haddii aad maalgashataan idinkuna waxbaad ka faa'iidaysaan ama sumcad ha ahaato ama wax kala ahaatee dalkiisina waxba u qaban karaan dadkaas inay doortaas la fikirayaan sidaa darteed marka sida ugu macquulsan ee aad u muujin karto inaad qofkaas tahay waa inaad usoo diyaargarowdo diyaargarowgaasa wuxuu kaa caawin doonaa markaa dhigtin inaad isku muujiso qofkaas sidaasna adhigtii natiijo farax gelisa oo inagu aqbala aad la kulanto sidaan ku soconno weeyaan marka luqmaan baan u imaanayaa galad baan u imaanayaa luqmaan iga raal noqday galad haddii aan ku imaado qofka waxaa tiri waa inuu run ka sheego xogta uu soo xaraystay taas micnaheeda bortalka wuxuu hor yaallaa wareystayaasha la wareystahana xogtii kol hore ka gudubtay waa un inta uu maskaxdiisa ku hayay iyo wixii uu soo qortay CV-giisa uu kusoo qortay marka sidee maxay ahayd ma jirtaa qodobo aad leedahay tusaale waaga experience-giisa ha iska micnaha hoosa ka xariiqo waxyaalaha qodobada muhiimka ah academic achievement-giisa hoosa ka xariiqo meelahaas leedahay qofka waxaas meeshaas way tahay because waxaa laga yaabaa qofkan inuu achievement fara badan uu soo sameeyey marka meel gaar ah is leedahay meeshaas ishu ku hay ma jirto waxaa ugu muhiimsan horta waxbarashada iyo khibradda uu leeyahay iyo meelo ku shaqeeyay iyo taariikhaha waxa ugu muhiimsan waa waqtigu high school ka baxay ilaa waqtigu dhameeyey jaamacadda waqtigu ku beeray bishuu ku beeray ilaa bishuu dhameeyey inta sano aan dhiganayay shaqada waqtigu bilaabay bishuu bilaabay waayo wixii xaraysay unbaa meeshan yaallo soo marka waxay ka turjumaysaa inaa waxa adi xaraysatay oo wax sax ay yihiin inuu qof kale ka caawiyo yani kuu soo xareeyay soo marka wixii xaraysatay adaaba yaqaan moo soo marka waxaa mar walba ku qasban tahay documentigii xaraysa dowladda PDF-ka inaad mar walba daawacato si oo aad dul marto si hadhow wax walba meeshaas oo irkaaga imaan kara yani meesha ugu saarta haddii aaleed shaqada wax ugu muhiimsan waxaas waliba saacadaha la isweydiiyaa full time part time waqtiyada la galo waqtiyada laga baxo waxyaalahaas waxaa ugu muhiimsan badanaa interviewga dadka lagu gaado waayo qofka qaar kale shaqo beenay sheegi karaan soo marka beri ka maalin meeshaas oo kale iraa ugu maakar laakiin markuu sax qofka u shaqeeyay oo wax walba yani u fududaanaya inuu si la rabo yani ugu jawaabo oo interview yani ugu baaso galad waa mahadsan tahay dib aan kugu soo laaban doonaa cabdiraxmaan sida caadiga geeskaasaan kasoo bilaabi doonaa marka cabdiraxmaanow hadda waxaan ka imaanay qaybta koowaad ee qofka intuusan miiska wareysiga imaan ka hor diyaargarowga muujin karo hadda markii uu qofka ka soo galay ilbaabka wareysigii qolkiisa uu soo galo bal qolkaasna waa soo martay information guud naga sii qolkaas siduu ahaa siduu u noqon karaa ardaydan waa ka duunaan karaa waa noqon karaa kii aad soo martay laakiin bal adigu waa aragnimada fiirinaysa su'aalaha iyo raggaas ku weydiinayaan logic iyo critical iskugu jireen kusoo dhow maxaa is leedahay qofka ardayga markuu meeshaas uu soo galo waa muhiim inuu ka digtoonaado waa muhiim inuu sameeyo maxamed horta saxbaad baa mahadsan tahay waa su'aal muhiim ah qolkaas horta xaaladiisu xaqiiqatan waa ka duwan tahay xaaladda banaanka marka qofku joogo sababto waxay tahay waxaad naawileysaa mustaqbal baa ku hor yaalla waad is leedahay maanta saa isku soo bandhigto baa wuxuu helaysaa marka qolkaas markaad ilinka ka soo gashaba optionska ugu horeeya aad weydiin doono ama adiga naftirkaa request gareyn kartaa ama codsan kartaa luqadda interviewga lagaga qaadayo interviewga 4 luqadood baa lagu maraa luqadda waddanka turkiga af ingiliishka af soomaaliga iyo af carabiga marka af ingiliishka maahe labada af oo kale inta badan qofka tarjumaan iyo wax noocaas oo kale loo soo diyaariya waxaa recommend garan lahaa qofku haddii uu af ingiliishka waxunba ka garanayo macnaha practice gareyn karaayo inuu ku hadli karo in isagoo intaan optionska la siinba inuu soo bilaaboba inuu kula hadlo sababtu waxay tahay af carabiga af ingiliishka kale haddii aad garanayso ama interview ku marto waxay kuu saamaxaysaa xitaa in lagu arko qof hadhow markuu community-ga la dhexgeeyo la jaan qaadi karaya ama afka baran karaya ama dadka ku dhex noolaan karaya oo kale ma recommend garayaan qofka markuu interview-ga maraya ama kuma soo jeediyo inuu af Soomaali ku maro taasi waa tan afka qodobka labaad oo isaguna muhiimka waxaa weeye qolka markaas oo inta badan dadka Turkidu culture bay leeyihiin dadka ku nool waa garanayaan dadka aqoontooda waa garanayaan codsiga requestiga iyo macnaha codsiga iyo mahadcelinta iyo macnaha iyaga dhankooda dhaqankooda iyo afkoodaba kaalin muhiim ah ku jira
qofku marka uu albaabka ka soo galo oo kale ma soo geli karaa markuu fariisanayo ma fariisan karaa oo kale marka inuu dhaho hadalka markii interview oo kale uu bilaabo markuu hadalka dhammaynayo oo kale uu istaagayo oo kale inuu mahadceliyo iyaga markuu baxayo ma bixi karaa oo kale waxyaabaha naftirkoodu attentionka qofka ama macnaha dareenka qofka interview ka qaada aad kusoo jiidan karaysaa marka shucuurta naftirkeeda oo iyaduna qodob aad muhiim u ah oo qofku dee uu aad u faraxsan yahay maadaama meesha soo galay ama uu aad ba u nixi karo maadaama laba dooqun uu meesha yaala ama inuu gudbo ama inuu interviewga ku haro naftirkeeda dhalinyarada waxaan kula talinayaa allahuma salli calaa maxamed inay shucuurta naftirkooda kantaroolaan si wanaagsan markooda horena ay usoo diyaar garoobaan qolka xaaladiisuna waxaan oran karaa xaaladda bannaanka waa ka duwan yahay xaqiiqatan kolay hadalka badin maayo saaxiibada ayaa inta kale ku dari doonaa cabdirasaaq oo imaana cabdirasaaq waxaan xasuustaa galabtii interviewga halkaas ku maraysa qolka siduu ahaa maantii interviewgu si guud ula mid ah interviewga kale ee loo maro hay'adaha kala duwan interview markaa maraysidna siduu cabdiraxmaan sheegay laba xaaladood mid aan filanayo marka waa farxad iyo cabsi isku dhex jira marka intaas markaan kasoo gudbo maantii markaa soo geshid sida cabdiraxmaan sheegayba kaljarka turkiga ama muqadir iyo dhaqankoodii markaa fiirisid polite language-ku qayb aad muhiim u kaga jira sidaa darteed marka talooyinka cabdiraxmaan bixiyo kale aad muhiim u yihiin sharcaan ama codsigaaga iyo ama hadalka ismidaysan iyo aad u gato intaas waxaan ku daraa maantii markaa soo geshid marka jawigu waa noocaas maantii waxaa joogo marka laga reebo dadka banalka fadhiya su'aalaha kala duwan marka laga reebo waxaa inta badan jooga qof tarjumaana taasoo ku xirnaan doonta luqadda adigu aad dooratid haddii luqadooda aad taqaanid oo af turkiga aad taqaanid waa aaday u fiican tahay haddii aadan aqooninna wax caqabada ma kugu imaan doonaan sababtoo ah way og yihiin oo sanad waxaa jiraba preparation oo ay ugu talagaleen dadka inay luqadooda ku baraan marka luqadda markaan kasoo gudbo maantii su-aalahoodu 3 nooc ay isugu jiraan su-aalo qofka shakhsiyadaada la xiriira sida waxaa qabanaysay ama xaaladda aad ku jirtay xaaladda familkaaga su-aalo shakhsiyadaada la xiriira su-aalo la xiriira kulliyadda aad dooratay haddii ay master aan lahayd haddii ay baaji aan lahayd haddii ay PhD aan lahayd iyo qaybta saddexaad oo ah su-aalo la xiriira turkiga tusaale ahaan su-aalo ay yani ku ogaanayaan inaad wax un ka ogtahay xadaaradda turkiga taariikh ahaan heerkay soo martay marka saddexdaas nooc ay isugu jiraan badanaa su-aaluhu badanaana dadka su-aalaha ku weydiinayo waxay isku dayayaan inta badan inay dad yani weydiin iska dhigaan oo maxaa dhahay ama si yani xogaa farxad iyo yani weyga ugu fiican ay kugu qaabili karaan inay kugu qaabilaan adigan sidaas si lamid ah xogaa farxad aad u fara badan inaadan muujin naxdin iyo cabsi iyo maxaa dhahay hargagaxna inaadan muujin sida ugu macquulsan qof dhexdhexaada xogaa farxadaada iyo aan kontaroshid cabsidaada iyo aan kontaroshid markaa soo geshidna ay ku ogolaadaan inaad fariisatid ilaa horta marka koowaad idan qaadatid markaa ku ogolaadaan inaad soo geshid fariisatid kadib ayagaa ku hagi doona intaas wixii ka dambeeyo oo laakiin si guud xogaa shucuurtaada hadday farxad ahaan lahayd iyo haddii naxdin ahaan lahayd labadaba inaad kontaroshido xogaa meel dhex isugu timaado marka si guudna sida cabdiraxmaan sheegay qolkaasi wuu ka duwan yahay jawigii bannaanka kuga jirtay inta badanna dhalinyaradu ayagaa iscaawiyaba oo tusaale ahaan waxaa laga yaabaa qofkii kaa horreeyo kasoo baxay oo kale in information iyo waxyaabaha qaar aad kala kulantiin laakiin si guud insha allah waa guul aan kaga jeeda galad waxaan u imaanaynaa qolkaas su-aalaha lagu weydiin karo maxay noqon karaan walahi qolkaas horta su-aalaha way ma badno marka u yartaa yani 7-8 aa la isweydiiya inta badan ani online kusoo maray waxaan la isoo weydiiyey 9 su-aalood marka su-aasha aa fahantay macnaheeda waxa waaye jawaabta barkeeda waaye tusaalo kale haddii uu dhahay iska hadal haddii uu dhaho inuu dhaha magacaada ii sheeg yani labay kala tahay magacaada ii sheeg muu dhaha magacaada ku eg tahay laakiin markii lagu yidhahdo iska hadal nafsadaada ka hadal uu dhaho waa inaa ilaa wala dhammaad yani heerka haddaa iskuul tahayna iskuulka waqtigaa bilowday ilaa waqtigaa dhammaysay aa sheegtid marxaladda soo marta aa sheegtid jaajacanta intaas aa sheegtid si yani kooban aa u heshid su-aasha mar walba inaa fahantid inaa ardada yani isku dayaan waayo su-aasha jawaabteeda haddaa jawaab qaldan bixisa asi automatically yani qofkan uu kasii gudbaa su-aasha xigta u gudbaa mees marka waxaa ku liis garoobi kara pointska ay hileed oo dadkan failka yani kugula jiro interviewga maanta maraa ayaa meesha ka bixaysa marka mar walbo su-aasha aa fahantid iyo jawaabta aa bixisid waa inay yani iswaafaqaan taasaa marka waxay saamixaysaa inaa points fiican dadkaas kuusan dhex baxdid macnaheedu waxaa u fahmay waxaa tiri haddii magacaaga lagu weydiiyo saddexdaada magacaa ku ekaanaysaa laakiin iska warbixi haddii lagu yidhahdo waa inaad iska waa warbixisa ina
jawaab dhammaystiran haddaad bixin weysid micnaheeda macnaheeda waa qodobkaas waa half hesho macnaha tusaale kale waxaa uu dhahay iska warbixa lagu dhahay automatically magacaada sheegtay high schoolka sheegtay jaamacadda la sheegtay waa istaagtay macnaha khibradaada maan sheegin waqti waxbarashada la waqtiyada kala duwanaa soo martay life cycle-kaada wax yani dheeraada faahfaahin ma bixinin magacaada iyo waxaa sheegtay oo jaamacadda iyo high schoolka saddex leeg u ekaatay macnaheeda marka ay ka dhigan tahay meeshii full jawaab yani lagaa rabay half a bixis macnaha bas marka waxaa laga yaabaa ardayga kaa dambeeya oo fullka bixi doona inuu kaaga jaanis badan yahay yani fursaddan meesha taal oo maanta yani miiska wada saaran oo qofkii ilaahu calfa u qaada doono taasaa marka is leeyahay in ardayda si sax su-aasha u fahmaan su-aasha kullima ay fahmaan waa kullima jawaab fiican ay bixiyaan si sax yani jawaab cabdiraxmaan haddii aan kuu soo laabto ardayda su-aalaha meeshaas lagu weydiiyo waxaa ka mid ah su-aalo way bedelman karaan oo sanadkan su-aalihii anagana lasoo weydiiyey way ka duwan yihiin su-aalihii ardayda hore la weydiiyey ardaydan hadda su-aalaha interviewga haddaan ka hadlayna badanaa waa ardayda masterka iyo PhD-ga ardaydaas weeyaan ardayda baajka dee khibradda haddeertaan ayagu waa imtixaan waxay galaan ardayda interviewga isku diyaarinaysa waa ardayda maxay ahaydee master degree-ga wixii ka sarreeya su-aalahaas waa su-aalo critical thinking ah su-aalo waxaa la weydiinayaa maadadan aad soo codsatay maxay micno kuu leedahay su-aashaas camal iyo su-aalaha lamidka ah ee lagu soo weydiiyay adiga hadda xasuustid aad leedahay su-aalahaas camal qofka waa inuu ka digtoonaado ma jirtaa maxamedow aad baan u mahadsantahay saaxiib su-aalaha lagu weydiin doono markii aad qolka gashahay kole horta dee su-aalo commonaa jira macnaha waxaa jira qodobo commona uu qofku u baahan yahay inuu diyaarka yahay diyaar u tahay inuu u diyaar garoobo iyo waxaa jira su-aalo iska maynara oo qofka banalka fadhiyo wax qiimeynayo oo kale iska kaa weydiin karo marka su-aalaha commonka la xira sida saaxiibada ay soo sheegeenba kama baxsana deeqdan waxbarasho ma u qalantaa kuliyaddan aad dooratay ma u qalantaa macnaha in lagu siiyo fursaddan su-aaluhu intaa kama baxsana su-aalo iska maynar oo kale waa jiri karaan kuliyaddaada naftarkeeda in su-aal lagaa weydiiyo oo kale allahuma sala khibradaada oo kale in wax lagaa weydiiyo waa jiri karaan tusaale markii aniga interviewga laga qaadayay su-aalaha la weydiinaya waxaa ka mid ahaa personal detailkaaga ama informationkaaga shakhsiga ka hadal already iyagu magacayga iyo xogteeda way hayaan waana ku weydiinayaan waxa meesha kugu qoray in lagaa soco inay kaa hubiyaan waana ku weydiinayaan laakiin si guud waxay ii weydiiyeen waxay ii dhaheen personal detailkaaga ka hadal marka si faahfaahsan baan uga hadlayay magacayga xogteeda waxbarashadayda educational backgroundkayga experienceyga iyo waxaas oo kale marka su-aalaha jiray ee kala soo dhex baxbaxayeen experienceyga iyo waxa la xiriira kuliyaddeeda naftarkeeda maxaa ku dooratay kuliyaddan naftarkeeda waxaan isku tolaya experienceyga iyo kuliyadda meesha iska soo waafaqaya tusaale kuliyadda ku diyaarinaysa oo kale masterka oo kale bay maxaad ku dooratay oo kale kuliyaddan marka waxaa ku toleysaa oo kale experiencegaaga waad leedahay tusaale waxa kanaan kasoo shaqayn jiray gaabkaasaan arkay aqoontaanaan isiri haddii aad soo qaadato gaabkan waa macnaha gaabkan xal baad u heli kartaa marka taa kuliyadda oo kale su-aalahay kaa weydiinayaan environmentigaaga deegaankaaga naftarkiisa su-aalahay kaa weydiinayaan su-aalaha muhiimka oo iyaguna xiisaha leh barnaamijka lagu weydiin doono waxaa ka mid ah ma soo noqon doontaa hadda scholarshipka markaad dhamaysato waxbarashada oo iyaduna aad allahuma salli calaa maxamed haddaanu wax ku soo barno waddanka ma ku soo noqon doontaa run ma ka sheegi doontaa mushkiladaas lahayd xal baa u helaysaa run ma ka sheegaysaa inaad intaa usoo noqotaa xaliso oo kale naftirkooda waa su-aalaha xiisaha leh ku weydiin doonaan allahuma salli calaa maxamed iyaduna waxaa micno sameynaysaa kole interviewga waxaan oran karayaa anigu waa afkaaga ku caanma intaasaan oran karaa raxmaan aad u mahadsantahay dib kugu soo laaban doonaa cabdirasaaq haddii aan u gudbo cabdirasaaq waxaan ku weydiinayaa maxaa intaas ku dharar leed adiga waxaan ku diri lahaa runaantii inta muhiimkeeda saaxiibka cabdiraxmaan aa sheegay runaantii horta su-aalaha lagu weydiin doono ee interviewga dadku way ku kala duwanaan karaan waxaa laga yaabaa qofna in su-aalo aad u badan la weydiiyo qofna su-aalo aad u yar la weydiiyo marka waxay ku xiran tahay kolley horta jawaabaha bixin doonta su-aalaha lagu weydiiyo laakiin waxaad ogaataa su-aalaha lagu weydiin doono ma ahan wax aad u dhib badan oo imtixaanaa gelaysid maaha wax yacni inaa soo akhrisay ee qasab tahay iyo kale maahan su-aalaha lagu weydiin doono waa su-aalo ku saabsan un adiga iyo wixii aad gudbisatay dabcan tiimkan ku weydiinayo su-aalaha
waxay hayaan xog fara badan oo adiga kugu saabsan ay dokumentiyada aad gudbisatay cv-ga aad gudbisatay xogta aad gudbisatay hayaan inta badan marka su'aalaha ay ku weydiin doonaan waa wax la xiriira wixii aad adiga u sheegtay waxaasoo qaarkoodna ay yani kaa hubinayaan oo hubin ahaan ay dib kugu celinayaan qaarkoodna ay u arkeen istifsaar dheeriya inay uga baahan yihiin marka si guud laba shay oon lagaa rabaa saan isleeyahay ta koowaad xogtii aad soo gudbisatay wax la xiriira inaad sheegtid iyo tan labaad oo ah kalsooni cabdirasaaq aad waa mahadsan tahay cabdiraxmaan aad dib ugu laabanaa cabdiraxmaan su-aashan waxaan rabaa inaan ku weydiiyo waxaa jirta arday badan oo scholarshipkan kusoo apply gareen dokumentiyada aan asalka ahayn original documentieska tusaale shahaadadii transcriptigii iyo waxay kusoo xareeyeen waxa la mid ah baasaboorka bedelkiisana waxay kusoo xareeyeen dhalashadii sugnaan ama national id ay kusoo xareeyeen ardaydaas iyagoon weli dokumentiyagii asalka aan haysanin haddii interviewgan lagu casuumay wax caqabada may ku noqon kartaa allahuma salli calaa maxamed su-aasha haddaad isku dayo jawaabteeda waxaan oran karaa wax mushkilo oo weyn ma keenayso in baasaboorku hadda kuu diyaarsan iska fiicnaan lahayd inay documentiskaaga oo dhan kuu diyaarsan yihiin laakiin wax mushkilaa ma keenayso arday baa jiri karta soo xariistay scholarshipka iyagoo jaamacadda semesterkii 7 oo kale ku jira ama semesteradii u dambeeyay oo kale ku jira sanadkii u dambeeyay oo kale adiga ku jira marka shahaadadiisa iyo baasaboorkiisu inay diyaar u yihiin waxay muhiim tahay interviewga jawaabtiisa markii loogu soo dhawaaqo xilliga uu safaaradda tagi doono fiisaha iyo barnaamijkiisa uu ka shaqayn doono laakiin hadda interviewga xilliga lagu jiro national ID-gaaga dhalashadaada iyo sugnaanta documentieskaaga waa ku darsan kartaa waana la tagi kartaa caqabad weyn ma leh baa oran karaa intaasaan kaga jawaabi karaa su-aashan ayadana aad bay muhiim u tahay selection markii interviewgaas laga gudbo waxaa jirta arday badan oo si gaar ah fariimo igu soo direen tusaale haddaan usoo qaato waxaa jira arday wuxuu codsaday hal jaamacad oo keliya isagoo hal jaamacad oo keliya codsigiisa u dirsaday aa lagu soo aqbalay halka sida normaalka ah ardaydii xaq u leeyihiin inay codsadaan 12 jaamacadood wuxuu welwel ka muujinayaa in maadaama hal jaamacad uu soo codsaday interviewgan hadda lagu casuumay haddii uu taas waayo wax kalta uu heli karin marka selectionka ma ardayga in ka baxsan in 12 uu doortay ma loo doori karaa ma laga yaabaa halkaas in laga celiyo welwelkaas ardayga qabo maxaa ugu jawaabi lahayd maxamed saaxiib waa su-aal xiiso leh aad u wanaagsan weeye optionska 12 option oo jaamacadaha waa dooratahay adiga un baa lagu yiri optionskaaga badso haddii mar lagu qanco banalku ku qanco in faylkaaga iyo documentigaaga ay sidaa u difaacatada sometimes mararka qaar waxaa dhacdaba 12kii aad codsatay maahay mid kale inay offer ku siiso tusaale aniga 12 jaamacadood baa 4 jaamacadood baan 12ka jeerba doortay 4 jaamacadood baan 12kii option ba ku darsaday markii interviewgan ka baxay offerka 4tii jaamacadood ma jaamacad kale ay soo dirtay offerkii oo laga keenay offerka marka welwel ma leh adiga interviewga uu iska adkay si wanaagsan uga bax haddii banalku kugu qanco interviewga ka gudubto oo ay kugu qancaan offerka jaamacadaha aad dooratay number bay qaataan tusaale kuliyadda engineeringka ama siraacaadka ama kuliyadda agriculture-ka aan iraahday ama kuliyadda lowga oo kale jaamacaddan waxaa u furan tusaale admissionka 50 arday oo kaleba inay qaadato kuliyaddaas 50 arday marka waxaa laga yaabaa hortaa in admissionkii buuxsamayba jaamacadahaagii aad soo codsatay kuliyaddaa ka codsatay oo kale in nambarkeeda uu buuxsamay marka banalkuna hadduu kugu qanco jaamacadihi